annaga oo salaadii duhur ka soo baxnay masaajidka Daarusunna baa waxaa nin ka mid ah nimanka dhalinyarada ah baa wuxuu arkay nin qaawan oo dhalinyaro ah oo Allahumma labbayg ah oo sidii uu ku soo dhashay ah ninkii markuu uu maqlay buuqiyo sawaxankii uu baxay anigu markaa masaajidkan iska dhex fadhiyaa waxaan lagu buuqanayaa waxaan markaa anigu ma ogi ninkii aan la socdo oo ah gruubka isxil qaamay ee iyagu hawsha u guntay inay dadka dhibirka qaba ee mujtamaca kamida ay wax taraan waqtigooda iyo maalkooda iyo intaba ay u horaan kamida oo markaa ila socdo masaajidka la fadhiyo intuu baxay waa wuxuu arkay ninka dhalinyarada ee 20 jirka ah ee qaawan ee sidoo hooyada ku soo dhashay ah toobu yiri halkii dadka kale ay ka cararayeen ninka waalan isagu wuxuu u bareeray inuu isagii toos u abaaro kadib ninkii uu u yeeray uu soo kaxeeyay dukaan bacdo oo meel dhaw geeyo wuxuu soo xiray kaba cusub surwaal cusub shaar cusub isla markaasna waa uu qada geeyay cuntuu soo siiyay isla markaana wuxuu ka codsaday sigaar haabu siiyay wuu kaxeeyay farmasi buu geeyo nabar ku yaalada loo soo dhayay isla markaasna dhakhtarkii wuxuu soo siiyay farmasiga waxa laga soo siiyay kiniin dajiya kiniinkii markuu 2 midib saxabad cunay nusaaca kadib amba 40 minute kadib ninkii si fiican buu nolol sheekaystay si fiican baa noo soo qaabilay waxa noqday nin caadi ah markaa bulshadii kamida markii aan wareysanay wuxuu noo sheegay problemkiisu wuxuu yahay laakiin halka ka sheegi maayo problemkiisu wuxuu ahaa ama sababay waalidan marka taasina waxay noqotay farxadii labaad ee aan isla maalinta la kulmo ee aan ku arko dhalinyaradan isxil qaantay ee iyagu magaranaysa waqtigoodii u horay in ay dadka dhibirka qaba ay wax taraan waxa kale oo ii sheegeen in uu liis dheer uu jiro oo dad kale oo fara badan oo mental ay jiraan magaalada Hargeysa degmooyinka tuulooyinka iyo gobolada kale doonayaan inay isku ballaariyaan oo waxtarka ay maanta muujiyeen arkay ay gaarsiiyaan dhammaan tuulooyinka degmooyinka iyo gobolada kale xafiisana ka furtaan dadna ay shaqaaleysiiyaan iyagoo markaa tabaruc markaa uu arrinkooda markaa uu yahay waxa kale ii sheegeen dadkan dhibirka qaba ee xaafadaha jooga ee ay soo list gareeyeen wait list ay soo galiyeen in ay laba qaybood yihiin qayb waxa weeyaan qayb dad ladan yani ka dhalatay oo dadka imaankan ilaahay ka qaadin mooyaan aan baahi kala qabin weeyaan dadka qaar ka beelayeen dadna waa dad maankiila ehelkii iyo faamiliga ay ku tiirsanaayeen uu yahay markaa mid danyara oo fuqara ah oo waxay hayaan aana jirin marka waxay ihtimaamka ay saarayaan markaas ay sheegeen in ay xooga saaraan ihtimaamna geliyaan dadka danyarta ah labadiba isugu biireen waa baahidii caadiga ah ee faamiliga koobsanaysay iyo ninka amba gabadha dhibirka qabtay ee meel joogta sidii wax loo tari lahaa runtii markii aan arkay arrimaha nimankaas ay wadaan aad baan ugu bogay aad baan ugu farxay waxaan filayaa in qof kasta oo wadanaya oo reer Soomaaliland ah oo gudaha wadanka jooga arrinkaasi markaan u sheego uu ku farxi doono isla markaasna taageero mug iyo miisaan la u deeqi doono nimanka iyaga ah arrinkaasi magaranaysa isu xilqaamay waxay maanta aan filayaa kaliya inooga baahan yihiin inay tahay in la support kareeyo la taageero la dhiirigeliyo af iyo adin iyo duco iyo maal intaba lagu taageero loo sameeyo xarumo gaar ah oo dadkan dhibirka ee faraha badan maanta guryaha jiifa ee danyarta iyo kuwa kaleba lagu xareeyo ayaa filaya kaliya inay tahay laga maarmaan in loo sameeyo arrinkanna waxa mas'uuliyadda u horeysa ay saaran tahay koowa dawladda weeye dadka ilaahay wax siiyay waa laba weeye dadka ehelka qaraabada u ahayd dadkan xanuunsanaya u ehelka ahayd u jifa hoose ah
إلهي وحدي يقول له حويان نمبر 3 وي واتدخل صدحات يقول حلك iyo waajibku saaran yahay in dadka la caawiyo oo wax la taro qof kasto caafimaad qaba oo Ilaahay niyirkiisa u daayay waxa weeyaan waa jawaab ku socota weeye soo Ilaahayna ugu mahadnaqo xiska u daayay isla markaas ugu cibra qaato isla markaasna uu tabarruc iyo wixii uu karayo walaakisan jiran uu siiyo waa imtixaan rabbaaniyo weeye wax ina wada saaran weeye marka waxa weeyaan oo leeyahay waa in magaranaysaa deel isxil saara oo ka mujtamac ahaan ka xukuumad ahaan ka family ahaan iyo reer ahaanba ay in xil soo saarno xil iska saarno dadka walaalaheen ee xanuunka qaba sidii wax loo tari lahaa gargaar loogu fidin lahaa kuwaasiiba dan yarta ah ee baahan ee labadaba isugu beertay waalid iyo baahid isugu beertay fiiro gaar iyo il gaar la siyaa waliba aan leeyahay taas aad baan idin salaamayaa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh